بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد aynu soo haynay tawxiidkii waxaa weeyaan dariskii sideedaad waxa ugu horreeye ummadda tan la faray nebi kastoo lasoo diray baa lagu amray inuu dadkiisa addiin kale u sheego waxa weeye inuu ka kufriyo daaquud oo alla kula rumeeyo ilaa keliya liqowlihi waxaa u daliila walaqad bacanaa في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومن حق عليه الضلالة وهو سورة النحل لحيو صدر يعني وما تكستوحى من كل رسول بانو ذرب إلى يجي أو لو يجي إلهي كليا أدم كلي عابودة لا إله إلا الله يوحى قبصتي لك على واجتنبوا كالطاغوت طاغوت كفرية طاغوت كحوين وعام وحوين طاغوتكو عد ولو إلهي أنت كسو يسال عابده وعبادة رالكا و أديبك إلهي باطل لغو راعه أي كوبسان يسوي فربدين يا ساحر كي وحكو شغية أردن وها صورة ما يديبك إلهي كوبسة طاغوت كلمين طاغوت مرنا أولياء بلغو شغاو مرنا أولياءنا طواقيت وأنا فربدين هذا ما حيكون كفرين وحيكون كفرين هيدا كلا إنه شيء كيسة إلى وحلا فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال إنما اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إلى مدة فريق واهنونيي ورسول شيء راعين يا كتبتي فريقا حق عليهم الضلالة قارنا وحكوان عضيين بادي وبان ويديدان رسول شيء يا كتبتي بقى محاو سبب نقضي هذا بقى إنما اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أولياء وحلا يراهدو وشياطين الإنس والجنة هي تمهل قرقاسدين way kaalmaysanayaan inta alla ka sokaysa markaasi haddana waxay ismoodayaan inay ayagu hagaagsan yihiin oo ilaahay adimka leeyay u dhowaanayaan oo caabudayaan taasaa u sababayd waa shayaadiinta taa marka qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi laa ikraha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay faman yakfur bitaaquut wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام منها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين دين تلا يسكو خصب مايو بالخصب مؤمن إنه كن نقول مايو دو حتى مؤمن كن نقول بالخصب ده قلبك منافق كن نقول ياهو وحقا عيه ماها لكن وين الدين تقن عساه وده بنا وقاتها ويكال عدادين هنونكي يو هابوغي كتاب كان أكفل عدي لكن كتاب صدقي هاي والبوح كسبة قرآن كان كوش شيء وده قالت كأيو وده صح مركا نموت دون راعي مركا وعيدي فما نكفر بطاقوت تطبع يك كفريا طاقوت كان لا يقول شيء اللي يدي مركا ربا اللي يدي قال هلا قط ومدر رسول صلى الله صدري ويوم بالله إلى كل يومية فقد استمسك بالعروة الوثقى لم ساملها والله سمعنا فقد استمسك نكاساق قبصدي هدم كلي هي وددي wanaagsaneed ee xarig aan goyn weeye waa laa ilaaha illa allah yaa lagu fasiray qaala tacaala ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi subxaana watacaala allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila nuur waladiina kafaruu awliyaahum daaquut yukhrijuunahum min nuur ila adulumaat ulaaika asxaabu nnaar hum fiihaa khaaliduun waa suurat albaqara إذا تهرب لحية كنتون وحلي لما بقوليو لحية كنتون إلا بقول تضبيه كنتون إلهي وحو ولي ويهي كوا آمني رسول شرعي قاتل لا إله إلا الله ككفري طاقوت ككفري يا أولياء طاقوت طواقيتها ككفري يا كاسو ولي كاسوي
oo wuxuu ka soo saaraa dulumaat alkufri iyo shirki iyo shirkiga ilaa dulumaat nuur waliimaan ayuu ilaahay geeyaa oo ku hanuuniyaa waladiina kafaruu kuwaa ka kufriyey adimka leeyay rusushii ka tegey ee kitaabkii ka kufriyey awliyaahum daaquut waa weligii kaasaa isagaa weliya weligoodu waa daaquut halkaa weeyaan waa awliyada caabudkii halkaasaa ku xidhayiinoo ilaahay saasuu noogu sheegaya noogu caddeeyey awliyahum daaquut marka kuwaasuna naar bay ku waarayaan naar bay ku waarayaan haddaba dawaaqidu way fara badan yihiin shan baa madaxdu waa shan ibliis ayaa horeeya waxa u daliila qawluhu tacaala alam axad ilaykum ya bani aadama alaa tacbudu shayطaan inakum caduwan mubiin waan acbuduuni hada siraat mustaqiim waxa weeya suuratu yaasiin aada lixdanaad bani aadamow maana hadimka leey idinkula dardaarmin yaa inaydan hadimka shaydaan caabudin oo cadow buu idin yahay oo aniga una caabudaan jidkii wanaagsana waa kaasi daaquudka labaad waxa weeyaan xaakinka bedela kitaabkan qur-aankaa ee dastoor ku bedelay waa kaa jaayirka ee daalimkaa weeye waxa u daliila qawluhu tacaala alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila daaquut waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu shaytaanu an yudilhum dalaalan baciida waidaa qiila lahum tacaalow ilaa ma anzala allahu ila rasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda ilaa lagala gaadho falaa warabbika laa yuuminuun xataa yuxkumuuka fima shajara baynahum uma laa yajidu fi nafsi xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima aayadkaas waxa weeyaan 60 ilaa 65 suuratu nisaa ma aragtay ibn axmed baa layidhi kuwa adimka leh waxaanu rumaynay kitaabkan ugu soo degay iyo hataa kutubii hore kuwan adimka le iguna diinii hore weeyaan ile kutubtaan rumaynay haddana yuriiduuna doonaya inay daaquud ku xukumo dastoor lagu xukumay ka tagaan kitaabkii waxaana lagu amray an yakfuruu inay ku kufriyaan daaquud ayaa lagu amray sida aayadda hore baynu soo sheegnay oo yuriidu shaydaanna doonayo inuu habaabiyo habow far dheer lumiyo haddii laydha kaalaya tacaalow ilaa ma anzala kitaabkan ilaahay soo dejiyey iyo sunnaha rasuulka waxaad arkaysaa munaafiqiinta isuduun canku suduuda ayagoo diidaya ayaad arkaysaa oo ka jeestay ilaahay isaga isku dhaartay markaa balaa rabbigaa baan ku dhaartay ba ilahay leeyahy muuminiin ma noqonayaan ninna muumin ma noqonayo xataa yaxkumuka fi jarmi ilaa kitaabkan aad ku xukunto oy raacaan oo wixii aad isqabsku haystaan markaad ku xukunto ay adimka leeyahay aan wax adimka leeyahay cidhiidhiya iyo wax adhaa ay raalli ku noqdaan isu dhiibaan kitaabkan iyo sunnaha rasuulkiisa midna muumin ma noqonayo marka waxa la xod sarku ku xukumaya oo dhan waxa weeyaan waa daalimiin waa ilaahay baa ku sheegay kaafiriin weeyaan ka saddexaad daaquudka saddexaad waxa weeyaan ninka adimka leeyahay dastoorkaa la bedelay wax ku xukumaya ee maxkamadoo soo fadhiistay ilaahay baa yidhi waxa u daliila qawluhu tacaala waman yaxkum ma anzala allah fa ulaaika hum alkaafiruun waman yaxkum ma anzala allah fa ulaaika hum alzaalimuun waman yaxkum ma anzala fa ulaaika hum waa saddex isdaba taagan ka ku xukumi waaya kitaabkan wax kale ku xukumaya waa kaafir haddana waa daalim haddana waa faasiq intaasoo dhan ba isku xidhan daaquudka adimka leeyay afraad waxa weeyaan halkaa xadiiska hore raacsan waxa weeyaan nabigu wuxu alay sala slam waladii nafsi biyadihi ilahay nafsada gacantis kursiyay laa yuuminu axadukum midkiina muumin ma noqonayo xataa yakunuu hawaahu tabcan lamaa jiitu bihi ilaa rabitaankiisa iyo hawadiisu ay hadimka raacdo kitaabka aan la imi sunahaygaa ilaa ay raacdo nina muumin ma noqonayo halkaas xukamada kaasa raacsan kan afraad waxa weeyaan mid kasta oo sheegta cilmi lqeybka oo idhaha waxaan ogahay adimkan cilmi lqeybka aan ogahay
waxaa berita dhacayaan ogay waxay adimka leeyahay meel kaaga yimi baan ogay qofkan kuwan adimka leeyahay wax daweeya idhaa halkaasaa lagaa raacay halkaasa waxaasaa ku sabab aha ama waxaasaa ku dawaa kaas oo dhan weeyaan waxa u daliila qawluhu tacaala ilaah wuxuu yidhi caalimu lqeyb falaa yudru calaa qeyb axada ilaa martaa min rasuulin fa inahu sukun bayna yaday min khalfi rasada ilahay baa caalimulqeyb kelidii umana daahiri cilmi lqeybkiisas kin cidnaba ilaa miduu ka raaliyo rasuula mooyaane oo ku ayadayo rasuulnimadiisana fa inahu kaasina yasulku min bayna yaday min khalfi rasad xaggiisa hore xagga dambaba gaadh baa ka socda sidaan waxyiga kani shaydan waxu darsanin oo kaasaa gaadh ka haya aayaad kale ilah wuxuu leeyahay ina allaha cindahu cilmu saaca wayunazulu lqays waxalu maa fi larxaam wamaa tadri nafsun maa taksibu qadan wamaa tadri nafsun biayri tamuut ina allaha caliimu khabiir waxa weeyaan aayadda adimka leeyahay suurat lqurmaan ugu dambaysa ilahay baa cilmi qeybka og saacaddu kor kacayso qiyaamu dhammaanayo qayska roobka isagunbaa og gooru dii dooniyo inta kaa dii doonta iyo cid calfad doontaba rixim waxaa ku jira dad iyo xoolaba ilahay unbaa og waxaa ku jira hadda imika lagu ogaaday combyuterka lagu ogaaday haddana halkaa ma ku dhimanaya ma ka soo dhalanaya muxuu yahay xisaab badan baa ku jirta war iyo halka idinku haysto wamaa tadri nafsi ma oga maadku qadan berito wax kasbi shar iyo khayr nina wuxuu la kulmi doono iyo wuxuu cuni doono war uma hayo haddana wamaa tadri nafsin biayri tamuut halka ku dhimanaysana xinjirteeda taalana nafina ma oga iyo xataa goori dhiman doonto ilahay inba caalim khabiirka og haddaba ninka shay cilmi qeybkaan ogahay waxaasoo dhan buu anigahay buu leeyahayo beritaa wax cunay hadda ma oga berita wax iman heli doona isagu war ma hayo haddana ninka ka warramayo leeyahy waxay waxaasaa ku dhacaya waxaasaa helaysa marka xadiiska nabigu wuxuu yihi man ataa curaafan wafasaaluhu fasadaqahu bima qaal kafar bima unzila cala maxamed ninka adimka leeyahy kuwa faaliya iyo curaaf waxbaa naqayo kuwa adimka leeyahy garab saaxib baan leeyahay jin baa la yidhaha ninka u yimaada wax weydiiya rumaysta waxa ay u sheegeen kafar bima unzila cala maxamed diinta nabi maxamed dabadu ka jooga ilaa uu toobadkaanu ka soo noqdo waxaasi waa kaafir mushrik weeyaano ilahay buu ninkaasu cilmi qeybka la og yahay oo ayuu kala mid dhigay waa mushrik cilmi qeybka inkaasu la og yahay ilahay unbaa cilmi qeybka og dee le haddaad hebel baa loog leedahay dee waa lo sharaakaad leedahay markaa waa lo sharaake ayaad leedahay wabilahi tawfiq halkaa inoo joogo